dhalinyarada ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo iyo kuwa ku jira xeryaha barakacayaasha ayaa maalin walba u shaqo tagay iskuulka Olympic oo ay ku taalo goob baabuurta lagu dhaqo. Dhalinyaradan waxaa intooda badan ay ku jiraan xilliga waxbarashada balse duruufaha nololeed ee qoysaskooda ku hareeraysan ayaa u diiday in ay wax bartaan sida carruurta kale ee ku nool magaalada. dhaqaalaha ay ka shaqeeyaan baabuur dhaqa ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Xasan Maxamed Cumar waa 16 sano jir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa baabuur dhaqista. hal sano oo shaqadan ka shaqeynayay waxa uu noloshooda ku maareynay 6 carruur oo isaga ka yar oo agoon ah iyo hooyadii. ayaal waxaan ahay 6 ana ugu weyn 7 ani bilaa maalinkii markay oo badan tahay 7 8 6 aan qaataa waxaa ka mareebto eegan siya shaqada baabuur dhaqista waxa ka shaqeeya ee ugu badan waa ilmo yaryar oo da'doodu u dhaxaysa 18 ilaa 10 sano jir balse carruurtan iyaga iyo qoysaskooda iyo dadka baabuurta ay ugu dhaqaan biyaha wasaqda ah waxay halis u yihiin xaalada caafimaad. inta badan xilliyada roobka ay ka da'ayaan magaalada Kismaayo dhalinyaradani waxa ay baabuurta ku dhaqaan biyo wasaqaysan oo fadhiista meelaha biyo qabatinka ah taas oo xanuuno ay ka dhalan karaan. Dr. Axmed Maxamed Xuseen oo ah agaasimaha cusbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo ayaan weydiinay biyahaasi xanuunada ka dhalan kara iyo khatarta caafimaad ee uga imaan karta dhalinyarada ka shaqeysa maalin walba dhaqista baabuurta iyo waliba bulshada kale. meelaha baabuurta lagu tirtiro biyo aad fara badan baa jiifa biyahaasi dhowr qaybood baan u qaybinaynaa waa qaybta koowaad horta ayaga waa fadhiyaan marka ay fadhiyaan muddo joogaana way isbedelayaan yani cudurro ayaa ka dhalanaya haddana talabaad ay ku jirto waxa waaye dadkii baa isticmaalaya oo dadkii maxay u isticmaalayaan inay baabuurtii ay ku tirtirtaan ta saddexaad waxa weeye dadkii ka shaqeynayay ee irsaaqada ka raadinayay ayaa ayagana ma aragtay ayagana waa qodobka saddexaad. marka cudurrada ka dhashay biyaha meelaha fadhiista ayaan ku horeynaynaa 7 cudur ilaa 6 cudur baa ugu muhiimsan oo biyaha ka dhalan kara. waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaan Soomaalidu typhoid ama tifo. ka labaad ee ka dhici kara waxa weeye cudurrada loo yaqaan dysentery-da in iyaduna ay ka dhacdo waa cudurka labaad. dysentery dabcan waa bacteria waa cudurrada bacteria-da ay keenaan jeermisyada bacteria-da loo yaqaan. waxaa kale oo saddexaad oo ka dhici kara cholera meelay ka dilaacdo waaye iyadana waan garanaynaa. waxaa kaloo iyadana ka mid ah qodobka afraada gooryaanada qaybo ka mid ah ayaa iyagana ka dhici kara oo xanuunadaas maartay lagu yaqaano biyaha fadhiistay wax lagu yaqaano. waxaa kaloo jira bacteria gooni ah oo ayaguna ka dhaca. waxaa kaloo oo ka mid ah cagaarshowga nooca loo yaqaan eega way dhakhaatiirtu wada garanayaan kaasoo maartay waxyaabaha cuntada maartay meelaha biyuhu fadhiistaan maartay ku faafa ayuu ka mid yahay. cudurradaas marka cudurrada ugu fara badan ee biyaha fadhigooda kaliya laga heli karo. Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada Jubbaland kana tirsan dalada ururada bulshada rayidka ee Junza ayaan weydiiyay sida dhalinyarada ka shaqeysa baabuur dhaqista ee duruufta iyo dantu ay ku kaliftay isticmaalka biyaha aan nadiifta ahayn loogu heli karo xal ka wanaagsan kan hadda ay ku sugan yihiin shaqadoodana aan waxba yeelin ee horumariya. waxa ugu muhiimsan horta waa in xog la raadiyo horta dhalinyaradan waa in guryaha ka yimaadeen iyo meelaha ku nool yihiin qoysaskooda dib loo baaro noloshooda la ogaado qaar baa waalidkood la jooga qaar baan waalid balahayn qaar baa meel seexdaan leh qaar baa meel seexdaan bahaysan qaar baa magaalo kale reerkooda jira halkan iyagu kaligood jooga siyaalo badan bay u joogaan magaalada. marka horta xog laga helo waaye xogta marka laga helo waa la kala qaadi karaa intii israaci karta waa la israacin karaa. siyaalaha loo wajihi karna waxay tahay ugu yaraan hataa dawladdu waxay lahayd dawladii hore burburay waxay lahayn labaajooyin publiga jiray intooda badan dad baa degan ama haysta oo iska cidla qaarkood way iska baabaasan yihiin. labaajooyinka loo abaabuli karaa oo loo dhisi karaa meel hoos ah oo fiican baabuurta lagu dhaqo biyo nadiif ah oo baabuurta lagu dhaqo iyo qaab fiican oo u shaqeystaan iyagoo loo sameyn karaa. waxaa kaloo loo sameyn karaa nolol ka duwanba sida baabuur dhaqista ka duwanba baa loo abuuri karaa oo macno kale sameynaysa si aan loo abuuri karin ma jirto. laakiin waxay u baahan tahay marka hore dadka in la wajaho horta xaalad markaa xalinaysid waxaad u baahan tahay inaad wajahdo xogna aad ka hesho isla markaana macluumaad laga abuuro macluumaadkaas lagu shaqateey karaa. laakiin waxaan aaminsanahay sida hadda ay ku nool yihiin si ka xun ma jirto waa laga leexin karaa. Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto Radio Kismaayo.